تعالى ما أنت وحين كهذنا مجاهدة النفس سيد اللولد ذا لها أما سيد اللولد جهاد لها نفطه أينو كهذنا نفط إن اللي جهاده وشيء آد مهم وحالها قف دوني إنه نفتي سلا جهاده وقف مقرنة دونية إنه أدونك لباتون كياله لجهاده sababtoo qof naftiisa markuu la dagaalamo guul dareysanaya waxyaalaha kalena uu la guul dareysanaya waxyaalaha kale uu ku guul dareysanaya markana waxa la doonayaa sidii waxyaabaha kale aan ugu guul dareysan wax kastaba aad ku guuleysatid marka hore naftaada ku guuleyso naftu waxay leedahay saddex cadow ثلاثة أعداء عدو كواد وحوي والشيطان عدو قلوادنا وهودا عدو قصدحانا وحوي حب الدنيا ده إن نجعل عضو مركا إن شاء الله تعالى صدح ذا وحيابه هذه أكقو ليستيد النفط هذه وأكقو ليستيد هذه صدح ذا وحيابه la guuleysan weydina naftaadii kama guuleysid marka ta koowaad waa shaydaanku waa cadow buuno yahay fattakhiduhu aduwa inna shaydana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay shaydaanku cadow ayuu idin yahay ee idukuna cadow ka dhigta marka qofku hadii lagu dhaho maanta cadow ayaa ku taagan banaanka aduu ku sugaya inuu kula dagaalamo doonaya hadii lagu dhaho aqliyan hubba qaadanaysa waa aadaysa ama hubba qaadanaysa waa isdiyaarinaysa oo haduu ku soo weeraro hubkaaga haysata laakiin ka soo baqad hadii aadan hubna qaadan oo iska aadid ka hor ama aadan hubna diyaarsan oo uu ku yimaado aqliyan ku jabinaya ama uu ku dilaya khadku ka saaraya Soomaa markaan aqligu ma keenayo niman cadow halka ku fadhiya faramarnaan adoo faraha waxba aan ku haysan oo bilaahuba aad aqligu kuma siinayo qof aqli leh oo taa ku fikraya ma jirto marka ugu horeysa waa inaad si qaadataa hub waa sidaas qofkuna waa sidaas qofka doonaya inuu shaydaan la dagaalamo waa inuu arkaa maadaama uu cadow yahay cadowna hubba loo qaataa waa in qofku uu hub qaataa oo ilaahi subhanahu wa ta'ala cadow ka dhigta ayuu yiri shaydaankaas waxa lagu weeraraa waxa weeye waa malaa'igta shaydaanku wuxuu ka dhaqaa malaa'igta inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah shaydaan maalintii la dagaalamay Badr oo doonayay inuu dagaalka galo isna markay malaa'igtu timi oo malaa'igtii arkay waatuu yiri anigu waxaan arkaa waxaan arkayn anigu ilaahay baan ka baqaya oo car malaa'igtu ka car markaana qofka muslimka waxa la doonayaa malaa'igta inuu u adeegsado shaydaanka oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay maalinta yawmal qiyaamah ama markuu qofku sii dhimanayo way naftu ka sii baxaso oo ay malaa'igtu nafta ka qaadaan dadka muuminiinta waxay leedahay malaa'igtu nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil aakhirah anaga xigtaniina ahayn xigtadiina iyo dadka inii heelinaya anaga adduunyo aakhiro marka hadda doonaysid malaa'igtaas inay ku heeliso dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dadaal hadda dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dadaashid malaa'igtaas ayaa imanaysa oo markastana ku heelinaysa hadda saaxiibo dhikri tahay qof dhikriga leh ama qof dhikriga sameeya marka qofku wuxuu leeyahay laba waxyaabood lamatul malaa'ika ama lamatul malak wax la dhaho iyo waswaasu shaydaan lamatul malak waxa weeye marka wanaaga lagu amro hoosta ka darantid in wax wanaaga kugu yeeraya iyo khayrka macnaha malagii ayaa hadallo ku soo turturaya oo ka xasuusinaya khayrkii wanaagii waswaaska waxa ku geenayna waa shaydaan marka qalbigaaga
labada waxyaabood ayaa ka buuxa ama jooga waswaaska iyo lamatu shaydaan marka adigu badana ma ka raacdid ay badana naftaadu maqlasa waxa laga yaabaa qof in uu malaga laga yaabaa bishii mar kaliya intuu khayr ugu yeero uu xasuusto mar kaliya inuu sababtoo ah wuxuu malagu ugu yeeri intaasoo maalmood kugu yeeri lahayd taa adiga waxa raacday waswaas shaydaan ayaa raacday marka waa in shayaadiinta u adeegsataa malaa'igta wayna u adeegsataa qodobka labaad waxa weeye al-amara bisu nafta xumaanta amarta saddex bay hayaan shaydaan iyo nafta xumaanta amarsa al-amaratu bisu iyo xub dunya iyo adduunka inaan nacdid nafta xumaanta sameynaysa ama ku amrasa weliga horta halay jirin wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu waxay leedahay gabadhaasu naftayda ma bariyeelayo uma badbaadinayo ma difaacayo maxaa yeelay waxa weeye waa mid dadka xumaanta amarta marka naftaadu markastoo xumaantu ku amarto ha difaacin oo aa u hiilin oo markastaba ka soo horjeeso oo markastoo waxa xumaanta ku amarto xumaantii diid ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri fa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa naftan xumaanta amrasa waxaad ku leexin kartaa ama xumaanta kaga soo leexin kartaa inaa cabsida amartid waxay kaaga sheekeynayso oo xumaana aad sameynaysid inaa u diidid naftaada inaa sida u haysid xumaanta ka qabatid ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri qofkii ilaahay ka baqa maqaama rabbih ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu hor istaagayo maalinta yawmul qiyaamah ilaahay inuu xisaabinayo isagoo sida daraadad uga baqaya naftana u diida waxa ay jeceshahay ama hawada u diida marka wasaas fa innal jannata hiya al-ma'wa qofkaas booskiisu iyo hoygiisu waa janno marka nafta xumaanta u diid saasoo kale ibn qayyim wuxuu sheegaa tusaale nafta iyo qofka sida ay u wada socdaan ayuu sheegaa wuxuu leeyahay ka waran faras iyo ninka saaran oo faraska waxaa lagu kaxeeyaa xarig halkan lagaga soo qabto magaranaysaa ayaa lagu kaxeeyaa iyo hoggaanka qofka hoggaanka faraska u haya ee dhakada ka saaran haddii uu si wacan ugu leeleexiyo oo faraska sida loo kaxeeyo yaqaano qofkaasi waa qof magaranaysaa faraskii meel wacan u hoggaaminaya oo ayna ka baxbaxsanayn ka carareen laakiinse hadduu yahay qof aanan aqoon sida loo kaxeeyo oo uu ka baxbaxsanaso ana haddii qofkaas uu ku fashilmo naftan waa saas oo kale haddaa nin awood le tahay oo magaranaysaa si wacan faras naftaada u kaxeeya oo xumaanta u diida oo wanaagga u soo leexiya waxa weeye nin adag baa tahay oo magaranaysaa sida qofka faraska si wacan u socodsiinaya oo hoggaanka si wacan ugu haya ayaa tahay isku guuleysanaysaa marka labada mid kala dooro qodobka ugu sareeya ama qodobka ugu dambeeya waxa weeye waa xubbu dunya waxa lagu daaweeyaa inaa aakhira xasuusatid adduunyadan waad ku nooshahay aakhira xasuusi aayadaha adduunyadu inay waxba ahayn akhri وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهب والآخرة خير وأبقى آخرة أما آخرة آياتها فاننا يا أمانة يا إني ونكبو حان إني جنة تعالو إني عذاب تعالو آخرة آياتها كهالي أخري إن شاء الله تعالى بتقولي سنة إنها سدح ذا كاتد مركا إن شاء الله تعالى بلنتي إنه حوي سدح ذا عدو وإني جبيه سدح ذا عدو شيطان ملائكته كجبينيسا ملائكته هذا دونسي إني hiilkaaga noqotona digriga badinaysa labo waa nafta xumaanta amrasa waxa weeye wax xumaanta ka leexinaysa oo ka reebaysa saddex waa adduunyada in la jeclaado aakhira nafta uga sheekeynaysa oo aakhira jeclaanaysa oo aakhira xasuusinaysa sidaas ayaa ugu guuleysanaysa insha Allah ta'ala saddexda cadow wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh